habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn waxay kala yihiin madaxweyne Donald Trump oo maalintii ugu dambeysay soo gaaray kadib 4 sano uu aqalka cad ka talinayay warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena caawa waxa kamid ah xukunka Joe Biden muxuu kaga duwanaan doonaa Donald Trump xukunkiisa waxaynu eegi doonaa waxa laga filayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Biden waxaan sidoo kale warbixin gaar ah idinkaga haynaa mid kamid ah isbitaalada UK oo qarka u saaran inay buux dhaafiyaan COVID-19 darteed shimbirka la yiraahdo guguulaha saynisyahanada ayaa ka digaya in shimbirkaasi oo codka cajiibka leh uu khatar ku jiro kala soco BBC News Somali Television ka raadiga online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxa la soo gaaray maalintii u dambeysay madaxweynenimada Donald Trump amaanka ayaa loo adkeeyay magaalada Washington kumayaal askarna waxa ay galeen Hagen FBI-da ayaa shaki ka qabta in dad ay jiraan aqas raba in uu dhaco Trump kama soo qayb gali doono dhaarta madaxweynaha cusub waxa tagaya laakiin Mike Pence madaxweyne ku xigeenkiisa waa kan Cabdiraxmaan Bidhaan oo ka warrama taageerayaashiisu waxay u arkaan inuu yahay madaxweyne hadal cad oo isku kalsoon isla markaasina aha cagaf meel walba jiidaysa laakiin kuwa ka soo horjeeda waxay u arkeen nin afxun oo ruwaayad dhigayay waxa uu ahaa nin bilyaneer oo ganacsada ah waxa uu ku dhaqaaqay inuu siyaasadda Mareykanka gebigeedaba la wareego laga bilaabo maanta mudnaanta koowaad waxa la Mareykanka muu ahay nin iska fadhiya xafiiska laakiin mar walba Twitterkiisa wuxuu soo dhigayay dhambaalo uu ku weerarayo cidda uu doono iyadoo uu ka gudbayba xeerarkii iyo xadkii madaxweynayaasha Mareykanka waxa kale oo ku guuleystay inuu maxkamadda sare u magacaabo 3 garsoore oo iyagu xiga dhanka muxaafidiinta laakiinse markaad eegto intii madaxweynaha waddanka Mareykanku aad ayuu si qaybsamay taasi oo keentay in xagaagii aanu soo dhaafnay bilaabmeen Black Lives Matters barnaamijyo lagu magacaabo laakiinse madaxweynuhu dhag jala qumuu siinin dhanka dibadda markaynu eegno waxa uu ka baxay heshiiskii nuclear-ka ee Iran waxa kale oo safaaradda Mareykanka u raray magaalada Quds isagoo markii hore la bilaabay kelmado adag oo ay isweydaarsadeen madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi laakiinse markii dambe labada nin aad ay isugu soo dhawaadeen iyagoo qabtay shir madaxeed ay ku doonayeen nabad waxa kale oo ku khilaafay madaxda reer galbeedka siyaasadda loo maray dagaalkii Syria iyo arrimaha ganacsiga waxaana uu mar walba u muuqday inuu jecel yahay madaxda diktaatooriyiinta markaad u eegto kuwa dimuqraadiyiinta ah taasi oo keentay in uu madaxweynaha Ukraine la sheegay inuu ku cadaadiyo inuu soo qodo bal waxa uu qarsoonaa Joe Biden laakiinse madaxda jamhuuriga ayaa la saftay markii madaxweynaha la soo istaajiyay golo joojinta Congress-ka maalintii la codeeyayna 4.7 milyan oo Mareykan ah ayaa u codeeyay isaga laakiinse taasi ma ahayn mid ku filan Joe Biden ayaa isagu ka wanaagsanaaday markaad eegto xagga dadku sidoo codeynayaan Donald Trump ayaa isagu waxa uu qaaday weerar uu ku qaaday nidaamka dimuqraadiga ee Mareykanka isagoo sheegay in la xaday doorashadaasi waxaana uu yiri Trump tani waa qiyaamo qaran toddobaadyo badan oo uu ku kacayay inuu kiciyo dadka la socda ayaa madaxweynaha Mareykanka taageerayaashiisu ay jiireen Congress-ka madaxweynaha ayaa lagu khasbay inuu cambaareeyo laakiinse xisbiga dimuqraadiyiinta xisbinihiisa oo aad u cadhaysan ayaa waxay bilaabeen inay Congress-ka keenaan in mar labaad la isku dayo in Trump xukunka laga tuuro oo maxkamad la saaro Donald Trump ayaa isagu waxa uu sheegay in aanu ka qayb qaadan doonin marka la dhaarinayo ninka isaga bedelaya tanina waxay dhamaad u tahay madaxweynenimo ahayd mid aan hore loo arag madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa la filayaa inuu isbedel ballaaran sameeyo marka uu aqalka cad galo iyo in uu aad uga weecan doono wadadii maamulkii ka horeeyay isaga ee Donald Trump isbarbardhigga qorshihii Trump ee ahaa mudnaanta koowaad waa Mareykanka iyo sida ay noqon doonto siyaasadda dibadda ee Joe Biden Samira Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa waa maxay siyaasadda dibadda ee Joe Biden siyaasaddii Donald Trump ee dibadda waxay ahayd mudnaanta koowaad waa Ameerika waa taliyihii ciidamada ee ugu taxadarka xumaa isla markaana ugu kartida xumaa ee abid soo mara dalka Mareykanka
ma laga yaabaa in Biden uu noqdo cagsigiisa waxa uu doonayaa in Maraykanka dib uga mid noqdo heshiiskii Paris ee cimilada hay'adda caafimaadka adduunka iyo dib u nidaaminta heshiisyadii caalamiga ahaa ee la dhaawacay waa kan Trump oo ka hadlaya Iran waxaan maanta ku dhawaaqayaa in Maraykanku uu ka bixi doono heshiiska nukliyeerka ee Iran ma laga yaabaa in Maraykanka uu dib ula heshiiyo Iran oo uu cunaqabateynta naafaysay ka qaado masna laga yaabaa in Iran ay la shaqayso Biden ma laga yaabaa in xiriirka Shiinaha uu sidiisa sii ahaado marka uu Joe Biden yimaado kadib waxa laga yaabaa in uu martigeliyo kulan lagu ololeynayo dimuqraadiyadda oo looga hortagayo saameynta Shiinaha Afghanistan maamulkii Trump waxa uu wada hadallo la yeeshay Taliban ciidamada Maraykanka ee halkaasi ku sugnaana waa ay soo baxayaan Joe Biden ma la shaqayn karaa Taliban la awood siiyay xusuuso markii uu Ruushka iska fogeeyay faragelinta doorashada Maraykanka hagaag Trump si ayuu ugu dhawaa Ruushka laakiin Biden si adag ma ula dhaqmi doonaa Putin intaa kadib dabcan waxaa jirta North Korea oo saaxiib la ahay Trump balse haatan diiradda saaraysa sidii ay ku cabrin lahayd Maraykanka cadowga ugu weyn Maraykanku waxa uu haatan ku soo noqday saxada caalamka waxa uu diyaar u yahay inuu hogaamiyo dunida ee ma ahan inuu dib uga laabto arrimo badan ayaa hor yaal madaxweynaha haddaba maxay yihiin kuwa sida gaarka ah ugu baahan wax ka qabasho degdeg ah waxa magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina si toos ah qadka Skype-ka ugu jirta Sahara Shirwaac oo ka tirsan golaha qurba joogta Soomaaliyeed si weyn ula socotay arrimaha Maraykanka Zahra soo dhawow waa aragnaa Joe Biden inuu soo socdo marka xagee wax ka bilaabi doonaa iyo waliba waxaynu ognahay in madaxweynaha hadda xafiiska banaynayo uu xil wareejintiisa xitaa imaanayn uu aqalka cad si ka duwan siyaabihii hore ku socdo in madaxweynaha cusub oo hadda la doortay Joe Biden waxyaabaha ugu horeeya oo markuu yimaado laga filayo inuu sameeyo ama uu ballan qaaday waxa ugu horeeya in uu marka ugu horeysa yiraahdo waxaan madaxweyne u ahay Maraykan oo dhan wixii ii bowday iyo waxaan ii bowdinbo waxa looga baahan yahay inuu la yimaado in ma aragtay plan uu ku taago COVID-ka iyo cudurka xunoo socdo waxa looga baahan yahay inuu la yimaado dhaqaale uu ku taageerayo dadka cudurkani uu waxyeelo gaarsiiyo shaqooyinkoodii waayo caafimaadkoodii waayay waxaan aad u rajaynaynaa in uu la dagaalamo in white supremacy-ga iyo injustice-ka waddankan ka socda oo domestic terrorism plan uu la yimaado in haddaad fiiriso in caalamka sida Maraykanku uu la dhaqmo waxaan rajaynaynaa inuu ma aragtay noqdo in qof garab istaaga oo u dagaalamo democracy-ga adduunka oo la dagaalamo dictatorships-ka waa tahay Zahra waxyaabaha kale oo xiisaha leh waxa ka mid ah haweenadii ugu horeysay ee aan cadaan ahayn ayaa madaxweyne ku xigeen Maraykanka ka noqonaysa marka adiga iyo haweenka kale ee Maraykanka ah maxay idinkaga dhigan tahay taas waxay nooga dhigan tahay guul aad u weyn oo ma aragtay u qalanto dadaalka iyo ma aragtay in halganka ay weligood ku jiraan dumarka madow ee waddankan degan iyo dumarka oo dhan laakiin gaar ahaan kuwa madow iyo kuwa immigrant-ka sideedoo kaleento oo ah laf dhabarkii waddankan haddii maxay ahayd si objective loo fiiriyo Joe Biden presidency-giisa oo dhan waxay ku timiday dadaalka gabdhaha madow marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa tahay Zahra adoo ii soo koobaya maxaa lagu xusuusan karaa madaxweynahan hadda sii socda madaxweynaha hadda sii socda waxaa lagu xasuusan doonaa inuu yahay mid kaligiis tashte ah oo aan sharciga Maraykanka u maxay ahaday in hoggaansamin inuu yahay mid divisive oo waddanka kala qaybiyay iyo inuu yahay nin been iyo ma aragtay wax aan suurtagal ahayn kaliya weligiis ku hadli jiray unpresidential ah oo waddankan dhibaato weyn u geystay oo madaxweynenimada oo dhanbo dantiisa kaliya ku fiirsanayo aan weligiis ka fakirin laakiin Zahra waxyaabo badan oo fiican ugu qabtay Soomaaliya oo Maraykanka dan u ah maxaa dhahday waxyaabo kale oo fiican ugu qabtay Soomaaliya Maraykanka dan u ah wax Maraykan dan u qabtay oo maanta aniga aan sheegi kara ma jirto waa mahadsan tahay Zahra Shirwaac oo qadka toos ugu jirtay ayay ahayd mahadsan bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa
safiirka Mareykanka u fadhiya Uganda Natalia Brown waxa ay sheegtay in laga hor istaagay in ay booqato hogaamiyaha mucaaradka Bobby Wine kaasi oo gurigiisa ciidamo ay ku hareeraysan yihiin. Mareykanka ayaa dalbaday in baaris lagu sameeyo waxa ay ugu yeereen isdawmareyn doorashada lagu sameeyay oo macquul ah kadib markii madaxweynaha talada hadda haya Yoweri Museveni uu ku guuleystay doorashada. Dowladda Uganda ayaa ku eedeysay Mareykanka in ay isku dayayaan inay baabiyaan doorashada. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka dalbaday Israa'iil in ay ka laabato go'aankeeda ay ku ogolaanayso in 780 guri oo hor leh ay ka dhisto dhulka la haysto ee daanta galbeed. Guterres ayaa sheegay in tallaabadaasi ay caqabad weyn ku tahay nabadda waarta oo dhexmarta Israa'iil iyo Falastiin. Guriyaha cusub waxa axadii ogolaatay dowladda Israa'iil. wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa ku eedeeyay dhigiisa dalalka Khaliijka in ay Iran wada hadallo ka dalbaday in ay Iran wada hadallo la galaan inkastoo qaarkood ay u arkaan cadawga ugu weyn. dalabka Mohammed Abdulrahman Altan ayaa ka dambeeyay kadib heshiis dib u heshiisiin ah oo dhexmaray Qatar iyo qaar ka mid ah dalalka dariska la ah. Saudi Arabia, Imaaraadka iyo Bahrain ayaa cunaqabateyn ku soo rogay wadanka Qatar 2017 waxayna sheegeen in ay aad ugu dhowdahay Iran. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. weli waxa inoo soo socda oo aan caawa qaybta dambe idinkugu haynaa shimbirka la yiraahdo gugulaha. saynis yahanada ayaa ka digaya in shimbirkaasi codka cajiibka leeyahay uu khatar ku jiro in uu dabar go'ana ay dhici karto. barnaamijka caawiya caalamka ayaad weli daawanaysaan anigoo Cusmaanna waa idinla socodsiinaya aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn.
madaxweyne Donald Trump oo maalintii ugu dambeysay soo gaaray kadib 4 sano uu aqalka cad ka talinayay xukunka Joe Biden muxuu kaga duwanaan doonaa kan Donald Trump waxaynu eegnay waxa laga filayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Biden waxa isbitaalada UK ka jira buuxdhaafkii ugu weynaa ee mar qura la dhigo tan iyo bilowgii aafada corona waxa cadaadis weyn ku yimid hanaanka caafimaadka ee UK xilli ay aad u kordhayaan bukaanada la seexiyo isbitaaladuna waxa ay sheegeen inay jiraan gaabis ku yimid daryeelka degdega ah BBC-da ayaa loo ogolaaday in ay warbixin ka samayso mid ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee daryeelka degdega Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya waxaa jira kuwa ay tahay naftooda ay u huraan si ay u badbaadiyaan inteena kale. We've got patients on the 3rd floor, 4th floor, 6th floor, 7th floor, 8th floor. 548 sariirood oo yaala isbitaalka Royal London. In ka badan 400 waxa saaran bukaan COVID-19. 10 maalmood ayaan la joognay shaqaalaha mid ka mid ah qaybaha gargaarka degdega ah ee ugu waaweyn UK. Iyadoo cirka uu marayo safmarku. marka London la seexdo ayaa shaqada habeenkii uga bilaabataa isbitaalka Royal London. Caroline Kelly oo ah kalkaaliso waxay ku sii socotaa shaqo culays ku haysa. Sleep isn't what it used to be. walwal ayaa jira marka aad toosto oo aad xasuusato xaaladda aad geli doonto waxaan nahay dad jilicsan oo careysan qaybta gargaarka degdega Dr. Nick Banker shaqo culus ayaa hortaal. He's got COVID and he's had a stroke. bukaan cusub oo COVID qaba ayaa saacad walba la keenayay intii uu shaqada ku jiray. So we're now going to run into a problem because we haven't got any beds. markaan waxaan hadda wajahaynaa dhibaato maxaa yeelay wax sariir ah maynan helin waxaan lahaa 5 sariir si aan u bilaabo habeenkii waxaan hayaa 2 bukaan oo dariskeena ah oo u baahan inay soo galaan bukaan kale ayaa la keenay xagee la geyn doonaa qolalkan ay hawadu ka xiran tahay bukaanka ayaa sanka iyo afka laga siinayaa oxygen xaaladooda waa lala socdaa laakiin waxay u baahan yihiin caawinaad ka badan midda mashiinka. I was so naive. ma u haysanin inuu mar labaad soo noqon doono cudurka marnaba kuma fikirin inay suurtagal tahay in la helo bukaanadan badan ee daryeelka degdega ah u baahan. Nick Banker waxa uu hubinayaa Caroline iyo shaqaalaha oo dhan isagoo gacan ka geysanaya la socoshada 130 bukaan oo ku jira xaalad degdeg ah isbitaalka oo dhan. Koronaha inta aanu bilaaban waxa yeelay wax ka yar 40 sariirood. Let me know if I need to know. Walise qaar kale ayuu u baahan yahay. Martin Freepon ayaa doonaya inuu nala hadlo. My wife lost a fight for life. xaaskayga waxay lumisay dagaalkii ay ugu jirtay nolosha waxa isugu darsamay COVID iyo infection aakhirkiina way u dhimatay. Waxa la oran jiray Helen waxay jirtay 64 sano. Please wake up. fadlan hurdada ka kaca oo aad u taxadara mar walba samee intii karaankaaga si aad u badbaadisid naftaada yeysan idinku dhicin sida inagu dhacday. waa 3 awoowe aan u ahay iyo 3 gabdhood waa taa xaaskayga oo xagga dambe ka muuqata waxay jeclayd in ayeeyo loogu yeero waa dhacdo murugo leh soo maahan. dalka Guatemala ciidamada ammaanka ayaa adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa iyo budad si ay u kala eriyaan kumayaal muhaajiriin ah oo xiray wado weyn oo dhanka bariga ka xigta magaalada caasimadda. maamulka halkaasi ka jira waxay sheegeen in ay waajib tahay in la joojiyo si looga fogaado dhibaato bani aadanimo. dadkaasi reer Honduras ayaa safarkooda bilaabay jimcihii waxa ayna qorsheynayaan in ay lugeeyaan oo safar dheer oo luga ay galaan oo dhowr kiiloomitir qaadanaya oo waqooyiga ah si ay magangeliya uga helaan wadanka Mareykanka. aadan maxamed cabdi saalimiin ayaa warbixintan soo jeedinaya. rabitaan quus ah laakiin go'aankooda ah inay helaan nolol wanaagsan ayay ku sii socdaan. kumanaan ayaa u socdaalaya magaalooyinka sida aadka loo ilaaliyo ee Guatemala. saraakiishu waxay ugu baaqeen si naxariis leh
ciidamadu waxay noola dhaqmeen sidii eeyo camal iyagoona dhahaya dib u noqda taasi cadaalad ma aha waa in ay runta ka hadlaan carruurteena qalad kuma jiraan maxay ku qaldan yihiin dadka ayaa kor u taagaya calamo cad oo ay ku codsanayaan safar nabadeed oo ay ku gaaraan Joe Biden America. laakiin ciidamada amniga ayaa ka shaqaynaya inay is hortaagaan safarkooda. wasiirka arrimaha dibadda Guatemala ayaa digniintan jeediyey. waa inaysan gaarin xadka Mexico ama waxa suuragal ah in dhibaato bani'aadanimo oo baaxad weyn ah halkan ka dhacdo. sidaa darteed waxaan la xiriirnay dowladda Honduras si ay nooga caawiso sidii aan u joojin lahayn dadkan socda oo aan uga caawin lahayn in qof walba in gurigiisa uu si nabad ah ugu laabto. laakiin durbaba waxa ay noqotay dhibaatada Mexico sidoo kale. xilligan safmarka safarkoodu waa mid khatar ah wuxuu faafin karaa fayraska wuxuu gacan ka geysanayaa faafitaanka fayraska run ahaantii runta ayaa ah inay u fiicnaan lahayd inay sii joogaan Honduras. laakiin dadkan reer Honduras iskuma dayayaan oo kaliya inay ka baxsadaan aafada dalkooda. rajadoodu waxa ay tahay inay saboolnimada ka baxaan iyo sidoo kale sharci darrada iyagoo safarkooda halista ah sii wata. markana ciyaaraha aynu ku hormarno marka hore ciyaarihii xalay dhacay ee horyaalka Ingiriiska inta aanan aadin kuwa caawa dhacaya. culayska kamuusan degin kooxda Newcastle ee dhinaca guuldarrada kadib markii xalay ay u noqotay kulankii 9aad oo aysan guuleysan. Arsenal ayaa halkaasi wacdara ka dhigto 3-0 ayayna kaga badiyeen booska 15aad ay kaga jiraan liiska horyaalka Newcastle. guusha Arsenalna waxa ay geysay xalay in Arsenal iyana ay galaan booska 10aad iyagaba meel hoose ku jiray. laba kulan ayaa ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee caawa dhacaysa. Leicester City oo hadda booska 3aad kaga jirta liiska kala sareynta horyaalka sare ay u soo kacaysaa waa haddii ay Chelsea ku tumaan gurigooda ka hor kulanka Leicester iyo Chelsea waxa is arkaya caawa West Ham waxayna arkaysaa West Brom oo hadda uu leeliyo mid ka mid ah macallimiintoodii hore Sam Allardyce. dhinaca ciyaaraha tenniska laba ciyaartoy oo kale ayaa karantiin la geliyay kadib markii laga helay COVID-19 ka hor tartanka tenniska ee Australia Open. waxa ayna ka mid yihiin 10 ciyaartoy oo lagu karantiilay qolalka hotelkii ay deganaayeen oo ku yaala magaalada Melbourne kadib markii laga helay caabuqa qaar ka mid ah rakaabkii diyaaradii ay ku yimaadeen oo ay soo raaceen markii ay Australia imaanayeen. qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa waxay muujiyeen caro iyo niyad jab iyo inay dib u arkeenba karantiilkan adag ee iyaga ay sheegeen inuu adag yahay ee la geliyo maadaama uu saameynayo tababarkooda. markana shimbirka la yiraahdo guguulaha ayaa loo malaynayaa inuu yahay nooca kaliya ee shimbiraha ee adeegsada qalab sida muusiga ay u tumaan garaaca sida durbaanka oo kale ayna sameeyaan. shimbirkaasi waxa uu soo jiitaa lamaanayaasha. waxa kaloo shimbirkaasi uu leeyahay cod cajiib ah waxaana laga helaa oo kaliya Australia iyo jasiiradda dariska la yiraahdo New Guinea. saynisyahano waxay sheegayaan in noocyadan ay soo food saartay hoos u dhac aad u weyn oo ina macquul tahay inay dabar go'aan oo dunidaba laga waayo. iyagu waa shimbiraha aan ugu jecelahay joogsiga buuxa runtii aad ayaan ula dhacsanahay iyaga. kani waa shimbirka guguulaha waa shimbirka kaliya inta la ogyahay garaaca qalabkii muusiga. waa uun abuur la yaab leh oo aan wax la mida aanay ka jirin dunida xayawaanka. waana inaan qiraa ulama jeedo inaan ahay qabiir cilmiga xayawaanka laakiin waxa ay aad ugu eg yihiin bani aadamka taasina waxaan u arkaa inay ka dhigayso mid xiiso badan. wuxuu farsamayn doonaa durbaankiisa u gaarka ah wuu goynayaa laanta wuuna yarayn doonaa wuu xoqi doonaa dhammaan jilifyada kadibna waxa uu ku qaban doonaa cagtiisa wuxuuna ku garaacayaa dhinaca geedka ee hoose. isaguna wuxuu ku samaynayaa qaab run ahaantii aad u qaafiyad badan. waa wax aan caadi ka ahayn shimbiraha dunida ama xayawaanka dunida maxaa yeelay inta badan marka ay xayawaanku qalab samaynayaan waxaa loogu talagalay ujeedooyinka ah in lagu raadsado oo la helo waxyaabo la cuno. shimbiraha guguulaha ayaa laga helaa cirifka waqooyi bare ee Australia iyo jasiiradda New Guinea. cilmi baaris cusub ayaa lagu ogaaday in shimbirahani ay tiradoodu hoos u dhacayaan.
tirada aanu darsayno waxa ay leedahay heer aad u hooseeya oo xagga taranka ah waa tan ugu gaabiska badan ee aanu ka ognahay shimbiraha dunida. dhadiga oo keliya ayaa dhigta ugu badnaan 1 ukun buulkeeda labadii sanaba. cilmi baarayaashuna waxay doonayaan in loo aqoonsado inuu sii jiritaankoodu uu khatar ku jiro, waxayna ku baaqeen in la helo maalgelin dheeri ah oo gacan ka geysta badbaadintooda. ugu dambayntiina caawa waxaan idiin hayaa saxaraha oo sida dalalka qaboobaha baraf lagu arkay. magaalada la yiraahdo Aynu Safra ee wadanka Algeria oo ku taal meel gees ah ee lama deegaanka saxaraha kaga taal ayaa waxa u da'ay baraf astaamo cajiib ah ayuuna halkaasi ku reebay. ku dhawaad 40 sano wax magaaladaasi baraf ah ma aysan arag. in saxaraha uu baraf ka da'ana waa mid dhif ah inkastoo habeenkii ay qabow tahay magaalada biyo ku filan magaalada ma haysato oo waa magaalo oomana ah. xusuusnow wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. inta aan habeen dambe waqtigan oo kale dib u kulmi doono aniga iyo dhammaan inta barnaamij ka qayb qaadatay waxaan idinkaga tegaynaa habeen wanaagsan, nabadgelyo meel kastood joogtaan.